بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada koorsadeena Adobe Premiere Pro. Koorsadan waxa uu talgalay ardayda bilowga ah iyo kuwa xoogaa waxay u bilaaban yihiinba. Insha Allah software-kan waxa lagu talgalay in wax lagu editin gareeyo. Waa software aad u weyn run ahaantiin wax tar fiican leh. Inta aan marka guda galin software-ka inaan wax ku editin gareeno, waxaa muhiim ah inaad ogaatid computer-kaaga inuu leeyahay wax loo yaqaan graphic. saa ogaatid right click ayaa task bar ku leedahay, task manager ayaad ku dhufanay. graphic waxyaabo oo ka anfaca waxa kamid ah computer-ka culeyskiisa yani iyo dhigid ma lahaana computer-ka graphic oo lahaa dhigidis way yaraana. Calaamadaas yar ayaa furay mararka qaar way xiran tahay. Hadda way furneed waa xiray kadib ana dib u furay. Waxa ku xulinaya meesha ku qorantay performance. Waxa meeshan ka fiirnay GPU inuu ku jiro. Waa ku jira qaybta hoos fiir GPU ayaa ku jiro. graphic waxyaabo faa'iido u leeyahay waxa kamid ah computer graphic ku leeyahay in wax lagu editin gareeyo aad u fiicnaanay u fududaanay mana dhigay. laakiin computer-ka dusan graphic lahayn Adobe Premiere Pro ku shaqeynaa laakiin uu dhigdhigaa. sidoo kale waxaad tagaysaa right click ayaad computer ku leedahay, waxaad tagay meesha ku qorantay graphic properties. markaad tagtid meeshan waxaan rabnaa inaan ka soo saxno wax loo yaqaano maximum performance. waxaa ku xulinaysaa power. markaad power ku xulid xoogaa yar oo isdaahinaa waxayna u dulqaadata laga baahan yahay. waxaan tagaynaa marka meesha ay qoran tahay plug in iyo on battery labadood waxaan rabnaa inay ahaato maximum performance. saa u jeed battery life maximum iyo wuxuu leeyahay wax loo yaqaan maximum performance. qaybta hoose jeeg saarnaysa sidaan ay tahay. qaybta battery waxaa ka dhiganay maximum performance. intaas ayaa muhiim ah. kadib markaan meesha ayaan kasoo baxaynaa waxaan rabnaa marka cashirka ayaan ku barnaa qaabka loola dego iyo website-ka ugu fiican oo lagula dego Adobe Premiere Pro iyo qaabka loogu shubto inaan barano. waxaad tagaysaa Chrome-ka qaybta sare waxaad ku qoraysaa get into PC. website-kan website free ah Adobe ayaa iska leh shirkadda Adobe. waxaan ku jira wax walba oo software ah wax lagu editin gareeyo Photoshop ku jiro, farshaxanada ugu dambeeya ku jiro. anaga hadda waxaan rabnaa inaan soo degsano Adobe Premiere Pro CC 2019. marka meeshan u jeedid waxyaabo tiro badan ayaa ku jiro. qaybta kor meesha ku qoranta multimedia ayaan xulnaynaa. multimedia marka xultid wuxuu ku soo saaraa wax walba oo multimedia ah. sida ugu horeey waxa ku soo saaray Adobe Media Encoder uu ku soo saaray waxyaabo far badan oo ku jiraan dhan hoos hada u sii socotid. qaybtana waxaad ku qoraysaa waxa loo yaqaano waxa u baahan tahay Adobe Premiere Pro u baahan tahay Adobe Premiere Pro CC 19 qoray inta u baahan tahay. kadib go ayaad leedahay. markaad go dhahdo kadib wuxuu ku soo saaraa Adobe Premiere Pro 2019 sidoo kale 20 ku soo saaraa. hadda hoos u baxay farshaxanada kale waa arkay 17 in arrinta laga yaabaa. marka anaga hadda waxa u baahanaa 19 20 uu jira laakiin wixii isdhaan yihiin malaha. shaqada marka gudaha u gashid waa isku shaqo. saasati 2019 ayaan marka anaga sharxina insha Allah. Adobe Edition ku jiro sidoo kale waxyaabo fara badan ku jiro laakiin anaga waxaa la deganaa Adobe Premiere Pro CC 2019 ku dhufo. marka ku dhufatay kadib qaybta hoos u siiro waxaa leedahay meel ku qoran tahay download oo soo sii socdo. meeshan qorto waxa qoran meeshan u jeedid download 16 bit yani kana la degaysa meeshan ku dhufanaysa. hadda aniga ugu jira inuu ii degay ima u baahni laakiin adiga ku tusaya meeshan marka ku dhufto kadib wuxuu ku bilaabay inuu ku dejiyo Premiere Pro. kadib marka uu ku dego wuxuu ku degayaa qaab zip ah ama sida failkan aan ku tuso doono kale. tusaale meeshan failkan ay qoran tahay zip waxa ugu jiro Premiere Pro iyo software kale. qaabka uu ku soo dejinaa marka waa qaab noocan oo kale ah. aan weyneeyo right click dheh view dheh extra large waa kana noocan uu ku soo muuqanaa zip waay. marka extract waxa la ruuso meena fail caadi ka dhiganaa failkan oo kale ka dhiganaa. marka failkan waa deleedina saa u fahanno in failkan extract oo ku dhacay right click aad leedahay zipka Adobe Premiere Pro hadda waa deleeday soo fail caadi haddan ka dhigaa extract markaan dhaho wajida boqol ayo taga kadib failkan kana fail ku soo darsan meesha failkan. kadib failkan uu ku jira setup-ka meeshan ka install gareynayna. qaabka loo install gareynayna waa taqaanaa install hadda muu baraayo sida software-ka oo install gareynay oo furayna. markoo furmo kadib Adobe Premiere Pro xolo si xolo qaybta hoos waxa ku qoran setup right click dheh refresh dheh
microsoft app soo qabsado double click aa leedahay kadib marka double click dhahdid jirooyin ku qabanaa sida caadiga aad taqaan 1 ilaa 100 marka tago oo ku shub karaaka taa kaga baahnaa yani 2019 karaak uma baahna si toos ah marka uu shubmo waa ku shaqo galay bis marka muuqaalka xiga ayaan ka bilaaw doonaa sheekaas cashiradeena kana waxaan ku baranay qaabka loo soo degsado iyo website-ka ugu fiican iyo qaabka loo install gareysto computer-ka waxaa muhiim ah inuu graphic lahaado meesha dadka fiirinaysay sidoo kale barashada Adobe Premiere Pro ama barashada waxyaabaha editing-ka khuseeya uma baahna war badan uma baahna ficil ay u baahan yahay sidoo kale wuxuu kale u baahan yahay practice badan marka cashirada ay qaatay inaa practice gareysaan practice-da aad muhiim u tahay in yani sheeka macalinka aanu ikaan labada xab example-ka uu ku siiyay inaad sii badisid waxyaabo far badan aad sii qabsatid oo ku mahadsantiin insha Allah waxaan rajeynayaa inay la jaan qaadi doontaan wassalaamu alaykum ta'ala wa barakatuh